waxaanu wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno liiska kala sarreynta awoodda ciidamada cirka ee waddamada bariga dhexe innaga oo raacayna warbixinta ay soo saartay mareegta warbaahineed ee global fire power oo had iyo jeer ka hadasha quwadaha ciidan ee caalamka qaybta dambe ee barnaamijkana waxaynu ku dulmari doonaa waxa ay ciidamada cirku yihiin ujeeddooyinka loo aasaasay waajibaadka ay u xil saaran yihiin taariikh ahaan xilliga ay soo bilaabmeen waddamadii ugu horreeyey ee yeesha ciidamada cirka iyo dagaalkii ugu horreeyey ee loo adeegsado macluumaad kale ayaa raaci doona ku soo dhowaada barnaamijka sida ay caddaynayso warbixinta sannadlaha ah ee ay soo saartay mareegta global fire power ciidamada turkiga ayaa kaalinta koowaad u galay liiska kala sarreynta 10 dowladood ee ugu horreeya awoodda ciidamada cirka ee gobolka bariga dhexe ee sannadkan 2021 kaalinta labaad ee dhanka ciidamada cirka waxaa gashay dowladda Masar oo ay warbixintu ku sheegtay in militarigeedu yahay ka ugu awoodda badan qaaradda Afrika warbixinta waxaa loo cuskaday qiimeyn lagu sameeyay xaddiga hubka ciidamada cirka ee ay dowladuhu haystaan sida tirada diyaaradaha dagaalka ee shaqada ku jira ee waddan waliba leeyahay inkastoo ay khubarada militarigu ku adkaysanayaan in tiro badnaanta hubka uu dal haystaa aanay keligeed ku fillayn in lagu qiimeeyo cududiisa militari laakiin ay halkaa yihiin arrimo kale oo badan oo qiimeynta qayb ka qaadanaya sida tusaale ahaan marka la qiimeynayo ciidamada cirka oo kale waxaa la eegayaa noocyada diyaaradaha dagaalka iyo kuwa kale ee ciidamada ee waddankaasi haysto tayadooda nooca tiknoolajiyadeed ay adeegsanayaan heerka ay kaga jiraan jiilasha hubka ciidamada tababarada askartooda iyo duuliyayaashooda iyo wixii la mida qiimeyntan hadda la soo saaray ee 2021 ee ku saabsan ciidamada cirka ee ugu xoogga weyn gobolka bariga dhexe waxaa si gaara loogaga qiyaas qaatay tirada uu waddan waliba ka haysto diyaaradaha dagaalka kuwa sahaminta kuwa loo isticmaalo basaasidda kuwa xamuulka ee lagu daabulo ciidamada helikobtarada iyo diyaaradaha dhanka tababarada loo isticmaalo ee horumarsan sidii aynu xusnay waxaa liiska kaalinta koowaad galay ciidamada cirka ee Turkiga oo haysta 1056 diyaaradood oo ciidan oo kala duwan tira diyaaradaha ciidamada ah oo aan kuwa Turkiga wax ka yareen waxa haysata militariga dalka Masar oo ku hubaysan 1053 diyaaradood boqortooyada Sacuudiga ayaa ciidamadoodu cirku galeen kaalinta saddexaad ee gobolka bariga dhexe iyagoo haysta 889 diyaaradood Israel ayaa kaalinta afraad ku jirta oo haysata 595 diyaaradaha ciidamadu adeegsadaan dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa kaalinta shanaad oo haysata 552 diyaaradood waxaa ku xigta dowladda Algeria oo haysata 551 diyaaradaha ciidamada sidaana ku gashay kaalinta lixaad kaalinta toddobaad waxaa gashay Jamhuuriyadda Iiraan oo haysata 516 diyaaradaha ciidamada ee kala duwan kaalinta sideedaadna waxaa fadhiisatay dowladda Suuriya oo ciidankeeda cirku leeyihiin 462 diyaaradood sagaalaadna waxaa gashay dowladda Ciraaq oo haysata 350 diyaaradaha ciidamada boqortooyada Urdun ayaa nasiib waxa u yeelatay kaalinta tobnaad ee liiska kala sarreynta awoodaha ciidamada cirka ee wadamada bariga dhexe waxaana ay ciidankeeda cirku haystaan 261 diyaaradood ciidamada cirkuna sidooduba waxa ay mas'uul ka yihiin hanashada iyo gacan ku qabashada hawada colaaduhu ku meersan yihiin iyo fulinta hawlgallada istaraatiijiyadeed iyagoo duqeynaya oo burburinaya bartilmaameedyo gaara taa kulana u fidinaya ciidamada dhulka iyo kuwa badda una gudbinaya macluumaad dhanka sahanka dushana ka garaacaya fadhiisimada iyo dhufaysyada adag ee ciidamada cadowga ciidamada cirka marka laga eego dareenka guud waa laanta ka mid ah militariga leeyahay ee ugu horreyn fulisa dagaalka cirka waana nooca ciidan ee mas'uulka ka ah dagaalka cirka oo ah dagaal ka duwan ka ciidanka dhulku galaan ama kuwa dhanka badda ereyga ciidamada cirka ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu tilmaamo inuu yahay ciidan hawleed xeeladaysan ama ciidan cirka ka hawlgala ciidamada cirkuna sida caadiga ah waxa ay ka kooban yihiin dagaalyahano diyaarado bambooyin helikobtaro raadaaro gantaalo maraakiibta diyaaradaha u qaada iyo qaybaha dagaalada elektaroonikada halka waxa iyana
ciidamo badan oo cirka oo dhanka difaaca cirka ka howlgala sida ciidamada ka howlgala madaafiicda lidka diyaaradaha gantaalaha hawada sare saanada diiniinta degdega ah bixisa gantaalaha lidka ku ah diyaaradaha ee difaaca cirka iyo kuwa kale qaar kale oo ka mid ah ciidamada cirka ayaa sidoo kale mas'uulka ah howlgallada aagaga militariga iyo gantaalaha qaaradaha isaga guusha tayada ciidamada cirku kuma koobna oo keliya kuwa aynu soo sheegnay laakiin sidoo kale waxa ay ku tiirsan tahay cudud weyn oo taageero ah oo laga helo askarta kale ee ka shaqaynaysa dhinacyada saadka amniga sirdoonka howlgallada gaarka ah dayactirka rakabayaasha hubka iyo takhasusyo kale oo badan oo looga baahan yahay inay yeeshaan ciidamada cirku ciidamadii ugu horreeyay ee dhanka cirka waxaa yeeshay dalka Faransiiska sanadkii 1910 waxaana ku xigay ciidamadii cirka ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo la aasaasay 1911 kuwii Jarmalka Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa iyaguna ku xigay dawladda Talyaanigu waxay ahayd tii ugu horreysay ee howlgallo sahamin iyo duqeyn ah ku samaysay ciidamadeeda cirka iyadoo dagaalkii ugu horreeyay adduunka ee dhanka cirkuna uu gudaha Liibiya ku dhex maray boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo Talyaaniga sanadihii 1911 ilaa 1912 markii la soo gaaray dagaalkii koowaad ee adduunkana waxaa markii ugu horreysay la arkay muuqaalka taliyayaal sarsare oo hagaya dagaalka cirka allahayow cadiimow casiisow jabbaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleelo cududda iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankii cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararo weli way cakirantee cadaab iyo jannaalow cirdarroorsihiiyow carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow carruur koryihiiyow risa cayimihiiyow cidduu raba u buuxshow calaacalaha taagnay caafimaad sareecana nagu caymi eebbow